kusoo dhawaada barnaamijkan cunto kariska ee idin soo diyaarisay Lifeline Soomaaliya. Marka halkan waxa aanu idin soo bandhigaynaa sida loo kariyo buskudka ama cookies-ka. Waxyaalaha aad u baahan tahay waxaa ka mid ah 2 koob oo sokora, 125 gram oo margarine ama butter, 3 ukun oo dhan, 3/4 fresh qumbaha la shiiday ee cad, 3 malqacdood oo baking powder iyo 1 koob oo porridge ka, 4 koob oo burka cad, half a liter ama 2 koob oo caana. Marka waxaanu bilaabaynaa sidii aanu idin tusi lahayn sida cuntadaas loo karinay. horta shaqada intaanad bilaabin waxaad sii shidaysaa foornadaada, waxaad dhigaysaa number 5. marka baaquliga soo qaado waxaad ku ridaysaa margarine-ta ama butterka iyo sokorta ayaad isku daraysaa, waad walaaqaysaa ilaa ay si fiican ay isu dhex galaan. markay is dhex galaanna ukunti ayaad markaa aad ku daraysaa, 3 ukun ee aan hore idin soo sheegnay ayaad ku daraysaa. markaas haddana aad walaaqaysaa ilaa ay si fiican ay isu dhex galaan. marka aad aragtid inay si wanaagsan isu dhex galeen, waxaad markaad soo qaadanaysaa qumbihii oo aad ku daraysaa. markaa kadibna sidiiba haddana ayaad u walaaqaysaa ilaa ay si wanaagsan ay isu dhex galaan, qumbahan uu meel walba uu ku fido. haddana marka waxaad ku daraysaa burkii iyo baking powder. burka adigoo ku daraya marba koob ayaad markaa ku daraysaa. kadibna waad walaaqaysaa si ay haddana isu dhex galaan. markaana waxaad ku daraysaa baking powder ayaad ku daraysaa. haddana marka sidiiba haddana aad u walaaqaysaa si haddana uu baking powderka uu ku fido. marka waxaad soo qaadanaysaa porridge-kii ama oat koobba marka aad ku daraysaa, oo haddana dib haddana aad u walaaqaysaa si ay haddana ay isu dhex galaan, oo kulli hataa aanu muuqan porridge si uu u dhex galo daqiiqdii iyo wax walba. kadibna haddana waxaan kusoo noqonaynaa burkii koob kale ahayd ayaa haddana lagu daraya oo dibba haddana loo walaaqayaa. marka qofka hadduu haysto mashiinka maaragtay mixerka ee gacanta ama mixerka burka iyo marka keega wax la sameynayo lagu qaso, taasoo isticmaali karaya. laakiin halkan waxaanu isticmaalaynaa malqacadda oo alwaaxa si qof walba uu u sameyn karayo. xaala dadku ma wada haystaan mashiinka. okay, marka waxaad ku daraysaa caanihii ayaad ku daraysaa oo haddana waa la walaaqayaa si haddana uu maaragtay wixii oo dhan ay isu dhex galaan, caanihii, burkii
borashkii iyo wax walba sidee u noqdaan wax iswada haysta haddana koob kale oo bura ayaa haddana ku daraysaa oo sidiiba haddana aad ku wadaysid koob kalena waad ku daraysaa marka caanihii ayaa haddana ayaad xoogaa yar ku daraysaa marka waad walaaqaysaa si haddana ay wax walba ay isu dhex galaan ayna noqdaan wax iswada haysta oo isdhex galay marka cabaar kadib ayaad soo qaadanaysaa alaabtii aad samaysatay oo waxaad marka trayga foornada waxa lagu kariyo ayaad soo qaadaysaa alaabtii iyadoo diyaara ayaa waxaad qaadanaysaa malqacad ayaad ku shubaysaa kadibna foornada ayaad gelinaysaa waxaad sugaysaa 15 daqiiqadood ama ilaa ay kalarkiisu noqdo kalar maroona kalar yar gaduudan marka muffinkaaga isagoo diyaara waxa aad ku isticmaali karaysid qaxwo ama shaa ama caano sida adigu aad rabtid ku soo dhawaada barnaamijkan iyo barnaamijyo badan oo kala duwan aanu idin soo diyaarin doonaa hadduu eeba idmo marka idinkuna waxa aanu idinka baryanaa si aad nala soo xidhiidhaan mar walba si aanu barnaamijkeenan aanu sii wadno aanu sii habayno waxaad jeceshidna aanu idin samaynona waraaqa noo soo qora wixii waanu tijaabin doonaa si aanu idin soo bandhigno iyadoo maaragtay si wanaagsan oo tartiiba sidaa iyo nabadgelyo